السلام عليكم magacayga waxa la yiraahdaa Mahada Xasan waxaan idinkula noolaa magaalada Minneapolis 10 sano ka hor baan idinka guuray hooyo single mom oo 6 ilmood korsanaysanahay marka waxa dhacday last year labada cunug oo igu waaweyn midna jaamacad buu ku jiraa midna 18 buu ahaa last year wuxuu dhameeyay high school laba bilood ka bacdi high school isagoo jaamacad u socda accident buu subax asagoo shaqo u socda oo waliba ku yiri hooyo anaa ku tuurayo intuu iga diiday ilmaha waad iska taqaaneen age-kan ku jiro wuu igu yiri ma ana aadaya break-gan ku soo noqonayaa buu accident nags ku dhaceen naagta markay isku dhaceen isaga labada miskood labada jilib cajirka laftaas dheer maxaa la dhahaa kalxanta meel walba ka jajabay 3 bilood ba waxaan kula jiray dhakhtar iyo rehab marka la isku wada daro 7 bilood hadda cunugii markuu soo yar ladnaaday uu iisoo sheegay socon xataa ma si fiican uma socon karayo waliba qalitaan dambe lagu celinayo inaan 9 jeerna waa la qalay markii waxaas dhan noo dhamaan rabaan bay hadda waxay ku soo jaaj gareeyeen manslaughter wax la dhaho oo up to 10 years buu iisoo sheegay hadday convicted ku dhahaan uu face gareynaya marka waxaan idinku imaaday magaaladaasna dadka ma aqaani 10 sanaan deganaa 10 sana iyagu baan ku mashquulsanaa inaan koriyo marka waxaan idinku imaaday magaaladiinaan iisoo sheegay aan deganaan jiray gabar walaashiinaan ahay dee in la caawiyo dadka lama haysto idinku baadin haystaa Soomaali Maxamed meel kasta adduunka joogtaanba bismillaahi raxmaani raxiim ummadda Soomaaliyeed halkan iga daawanaysa aad baan u salaamayaa arintaynu halkan u nimi waxa weeyaan walaasheen Mahado wiilkeedii oo 18 jira oo shil galay oo waliba jajabay ayaa haddana waxa lagu qaaday kiis qofkii kale ee isjiireen ee shilka wada galeen laba gaari oo isgalay ayay gabadhii uur la dhimatay waxa la yiri adaa ka soo dilay wuuna jajaban yahay marka gabadhan Minnesota waxay u timi oo Virginia uga timi inaynu caawino marka gabadha waa inaynu garab istaagnaa masaajidadeena baac mushtarkeena dhalinyaradeenna khiyaarteena waa inaan gabadha garab istaagnaa aniguna cadar ahaan waxaan ballan qaaday inaan dadka ugu horeeya garab taagan aan noqdo Mahado aan garab taag don't worry ha warwarin annaga ku joogna ilaahayna garabkaagu taagan yahay una soo duceeyo oo masaajidada uga soo duceeyo waa gabadh yar oo hooya oo 6 caruur haysata oo aad u murugaysanay u soo duceeyo culimada ay masaajidada uga duceeyo lacagna inuu ururino hadii irbad waxa la yiri la ururiyay masaar bay noqotaa reer Minnesota waynu ka adagnahay arinta loo yarkaa iyo wax ka badanba halka waxay uga timi tolkeed bay u timo reer Minnesota Soomaaliyeed Soomaalinimo inagu tolka ka yar xun xaafadaha inuu naqaan laakiin inagoo dhan baa tole salaam calaykum hiba maxamedna way soo socotaa hibana way nagula jirtaa programka she's on the way way soo socotaa salaam calaykum waa idin salaanay Soomaaliyeed hadda shaqadan waa shaqadeeni tan la isu sheegi ma waa ma aragtay waa hawl ma aragtay la isaga baahan yahay kulligeen inaan ma aragtay gabadha walaasheena aan si fiican u garab istaagno Mahado waa Minneapolis oo waa yaqaan oo dadkii hore Virginia ay tagtay wixii qadarana ma aragtay lama seegaayo ilaahay wuxuu ku qoray ma aragtay kugu dhacayaan wiilka yar ma aragtay wiilkeeniyo kala ah in ma aragtay hadii ilaahay idmo aan la garab galno gabadha oo lawyer-kaas waxa uu u baahan yahay aan soo dhicino oo soo saarno insha Allah ayaa la isaga baahan yahay wixii information oo faahfaahin oo kala anaga idin la taagan insha Allah waa iska warhaynaynaa waxaan idinka sugaynaa insha Allah garab qabasho aan hagar lahayn ayaan idinkaga baahanahay hadii ilaahay ka raali noqdo Mahado waxa Virginia ka keenay ee Minnesota keenay waxa weeyaan waxay ku ogtahay dadnimadii iyo Soomaalinimadii inay Minnesota ka jirto waxay ku ogtahay dad u damqada dadkooda inay Minnesota joogan tan gabadhan haysatana qof walba any day ku dhici kartaa waxa la idinka rabaa waxay tahay qof walba inuu guntiga dhiisha iskaga dhigo in loo istaago gabadhan in wax walba oo awoodaan qof walba waxa la furay page oo GoFundMe ah oo gabadha lagu caawinayo qofkii individually raba inuu gacantiisa wax ugu keenana annaga aad nagala soo xiriiri kartaan gabadhaas especially waxaan aad uga codsanayaa dadka businessyada leh dadka wax awooda xataa ilaahay awoodiisa waa jeebkooda awooda inay gabadha wax weyn taraan in loo istaago in aan la isku fiirsanin aday kugu dhici kartaa wiilkaaga ku dhici kartaa wiilkayga ku dhici kartaa anaga ku dhici kartaa waxa weeyaan arin gabadhan garab ay nooga baahan tahay hadal badan ma jiro walaasheen loo istaago aad hooyo u murugaysan weeye hooyo aan ogeyn waaye bari in wiilkeeda xabsi la geyn doonayo in kale laakiin inta aan u awoodno waa inaan caloosheeda tusno inaanu Soomaalinimo garab taaganahay oo shilinkanaga iyo garab iyo niyad ahaanba aanu garab taaganahay intaasana laga rabaa aniga caruuraan dhalay 3 wiil iyo gabar ay joogto qofka wax dhaloorta waa fahmi karaa xanuunka oo ilaa horta wax weyn noo ma yaalin to be honest aniga markaan ka hadlayno
wax meel nooma yaalin adduunka intiisa kale meelay wax dhigtaan anu waxaan dhihi lahay dad badan oo Soomaaliya jira oo aad u fiican oo waxna bixiyaan waxna galaan waxna gudaan waa soo sheegay walaalkii dalmar qof walba ay qabsan kartaa qof walba oo bini aadan ay qabsan kartaa waxaan dhihi lahay anigu hallo istaago lacagta ay gabadha sheegto waxaan jeclahay inay abaayo sheegto lacagta loo baahan yahay looyarada qaar waa kala qaalisan yihiin iyo in la tusiyo inuu dadka dhashay maalinka oo maxkamadda tagaayo waxa aniga idilaayo waxa waaye ma tagno meelaha oo nulgu bahdilaayo ama meelaha u baahana in la tago la taabto $100 waxbiga ma dhibayso boqol inta ganacsiga la haday kun bixiso gabadhan waa la caawin karaa waxaan maanta isugu soo baxnay mahado wiilkeeda oo shil galay last year shilna wuu dhacaa anaa geli kara adaa geli kara qof kale ilmahaaga geli kara marka wixii dhacay baa waxa laga dhigay qofkii ajashiisa meesha ku dhamaatay in qofkii criminal amal loola xisaabtamo qofkii asagii dhaawaco haddana wiilkan 7 bilood dhakhtar yaalay haddana lawyerkii oo lacag badan noqday gabadha dhibaatooyin fara badan isugu timid state-kay degantoo ah state xoogaa ma aragtay Soomaalida iyo dadka cadaanka ku kala awood badan yihiin oo sida Minnesota kale meel aan power ku leenahay aan ahayn marka maanta waxay noo soo doonato intaas oo kun oo mile ay u soo jartay waxay tahay inaan walaasheen garab qabano marka de hadal waa intii hore loo yiriyo dad badan oo iga la jansan oo iga madaxsan ba meeshii ka hadlay marka hadalku wuxuu ku soo ururayaaba de waxa la nin fadhi kugu arki waay looma sara joogsadee de gabadha aan u soo baxnay insha Allah taala dhamaantiina waa in salaamaya assalaamu calaykum arrintan waxay u baahan tahay Soomaali Maxamed oo dhan arrintan hooyo walba iyo aabbo walba ama inta jooga ama Canada jooga ama Europe ha joogo waa arrin qosaysa intaan anaga isku duubanahay waa inta aan waxnahay waxaan Soomaali Maxamed dhanka codsanayaa dhalinyarada yani wadankan markay qalad ka galaan waxay u baahan tahay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabbayaasha Soomaaliyeed iyo culimada dhamaan inay wada istaagaan arrintan arrin igu soo ordo maaha waxaan rabaa dadkii inaan xasuusiyo dalkan Mareykanka gaar ahaan dhalinyarada da'doodu 25 ka yar tahay waxa koobaad ay u dhintaan waa shilka ay galaan dhalinyarada da'doodu 13 ilaa 25 u dhaxayso 3 jibaar waxay galaan shil ka badan dadka caadiga dadka waaweyn shilalka ay galaan taas waxay ku tusaysaa marka wiilkan dhalinyarada ah ee walaashan ay dhashay isagoo 18 jir ah qof dhalinyaro shaqo u socda subax ay tahay shilka uu galay inuu yahay shil accident wax maartay aan wala ka ahayn nasiib darro sharciga wadankan ayaa wuxuu yahay sharci dadka u kala eexda qofka cadna si gaar ah loogu qaado qofka madow ama muslimka ama dhalinyaradan si gaar ah loogu qaado marka waxaan rabaa hadalka wala dhameystiray maartay waxa hadda walaashan ay soo doonatay waa gurmad iyo hiil iyo ho hadal ma aha reer Minnesota waxaan rabnaa in loo istaago gabadhan qof walba wixii aad awoodo haddii aadan awoodin xitaa inaad sadaqadan la baxdo waa sadaqo taageeradan inaad sii faafiso videogaas aad sii gaarsiiso dad kale aad ku dhiirigeliso insha Allah ducana ugu dar waxaan rabnaa dhamaanteen inaan duceyno walaasheen in wiilkeeda Ilaahay uu badbaadiyo xabsi ka badbaadiyo insha Allah adigana waxaan u garab taaganahay kulligan waalid ayaan kulligan waan damqanaynaa marka waxaan rabnaa hiil iyo hoob in walaasheen iyo wiilkeeda la garab taago waxaan rajaynaynaa in lawyerka iyo baahideeda intaba aynu ku filannahay una istaagno anagoo kooka ah gabadhaasi waxay inooga timid walaasheena magaalada stateka Virginia Minneapolis bay la joogtaa hiil bay inooga baahan tahay waxaan rajaynayaa inaynu u hiilino waayo dhibaatadani dhibaato iyada uu ku kooban maaha qoys ahaan iyo dad ahaan iyo ummad ahaan iyo Soomaali ahaan intaba way gaaraysaa waxaan filayaa inaynu ka qayb qaadan doono Assalaamu calaykum magacayga Huda Daahir Daawud baa leeyahay waxaan maanta halkan u imiday oo inaan support gareeyo walaashay garab istaago all I wanted to say as a mother I feel your pain personally aniga way itaabatay because inanka yar habar baan u ahay walaashay baa dhashay mahad waa walaashay marka it was really hard, it breaks my heart that as a mother somebody who wants a better life for their child inay magaaladan uga guurtay inay nolol fiican ilmaheega siiso ilmo baariyana korsatay school u dhameeyay u shaqeynayay
ay u rajaynaysay the American dream inay successful noqdaan iyagu naftooda iyo hooyadoodba maxaa la yidhaha berrina sin lahaa in a split second lifekiisii silmahaas isku bedelay hooyadii isku bedelay qaraabadii iyo familkii iyo ehelkiiba isku bedelay waxbaan weli ka qaban karnaa I still have hope that this child with bigger dreams inuu dreamkiisaas accomplish garayn karo inkastuu systemku againstiisa yahay ilaahay baa madow u dhaliyay ilaahay baa Soomaali ka dhigay ilaahay baa muslim ka dhigay and that's what's against him today marka hooyo walba waxaan ku baraarujinayaa inay dareento maanta hooyadani waxa ay dareemayso and inshallah as you know everybody said donate anything you can if you can donate any money share please dadka kale la wadaag maxaa la yiraahdaa hooyadana ha la caawiyo assalaamu calaykum magacayga waxa la yiraahdaa Saamiir Dhalaal marka waxaan rabaa heer Minneapolis wanaaga dadkeenan garab istaagno walaalaha waynu caan baynu ku nahay walaasheen ha loo gurmado hana la caawiyo $2 idhaad way caawinaysaa dollarku waa caawinayaa hooyadan in la caawiyo weeyaan gabadh walba hooyo ana beenka maanta haysta way dareemaysaa waana xanuun ilmahaaga maanta markuu hana qaaday maaragtay jeel laga dhigay walaashay mahado mar dhowaan bartay xanuunka ee dareemaysana dee qof walba uu dareemayaa anigu يعني هوي ما هي لكن Soomaali nimo muslimnimo maaragtay gabadhnimo walaalnimo sidaas darteed ayay ii damqaysaa marka waxaan rabaa inaan dhaho de hadal badan waa la yiri dadka Soomaaliyeed ee daawanaya meel walba joogtaan qof walba ku dhici kartaa anaga nagu dhici kartaa in walaasheena u soo baxno sida aan maanta inta u nimaanay idinkana aad maaragtay nooga qayb qaadataan sadaqada gabadha tan garab bay naga rabtaa heer Minneapolis iyo Soomaali weyn oo dhan adduunka meesha aad ka joogtaanba marka gabadhan walaasheena dollarku waa Saamiye sheegtay dadkii kale inaga horeeyay waa lacag ha kala bakhaylnina waxa weeyaan ha kala xishoonina wixii awood aad noqoto gabadha tan waxa weey in lagu soo caawiyo weeyaan marka waxaan dileenahay walaalo ku garab joognaa بدعانا ويدين كباهنتها إلهي إنه قعنتاس محل هذا وإن كاير هاد وكو قعن شرو أو يا مشيل كائد دونيان إن لدقو إلهي إنه كبد باديو إذا نقصو دعية